aniga waxaan rabaa inaan ku weydiiyo howlgallada socday ee al-shabaab deegaanada looga xoreynayay. waxaa jirta howlgalladan qaabka ay ku bilowdeen in dowladda ay kula daaratay beelaha hiiraan degan oo howlgal ku jiray oo dagaal ku jiray inay dhinaceedii ka gashay oo uusan jirin qorshe diyaarsanaa iyo istiraatiijiyad. muddo hadda sanad ah waxaa la isweydiinayaa howlgalkaas wuxuu ka bilowday beer yabaal uu ka bilowday oo Buloburto korkeedii ah. weli beer yabaal la joogaa. maxaa natiijo ah oo maanta laga dhaxlay howlgalkaas maadaama qarash ku baxay oo shidaal ku baxay oo rasaas ku baxday oo naf ku go'day oo dad ku naafoobeen? caawa maxaa la sheegi karaa dowladda oo natiijaha howlgallada laga hayaa? tan labaad aan ku weydiin lahaa waxa waaye dowladda si waxay ugu eg tahay xogta iyo sirta iyo waxa loo baahan yahay in bulshada ay soo gaarto inaysan midaysnayn oo mararka qaarkood dowladda ay u ekaanayso dad hay-ado kala duwan ah oo qofba ama siyaasi si uu u hadlaayo ama cidda asaga miidiyaha u haysa ay si wax usoo gudbinayso. maxaa diidaya inay dowladda hadafka xogaha ay bixinayso uu mid ahaado ama negative ha ahaado ama positive ha ahaado hal waxa isku og tahay muxuusan u ahayn? intaas waa aad u maasantay. way arinta ah deegaanada maxaa natiijo weyn in quality and quantity baa laga haya. waa boqolaalka kun ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka xoroobay gunimadii iyo guhaadii iyo gumaadkii lagu hayay. ragga cilmi hagariya ka mid yihiin Hibaad Cali Dasar ninkii la oran jiray ee wiilkiisu 8 jir intuu ku dhigay waraabe nimanku iyo ka haysan iga reeb Allah yarxamar rahimin ee intuu qori u qaatay ay dileen nimankaasi. horta degaankii uu ka soo jeeday Wargaadhi iyo Guulane maanta waxna waa lagu bartaa waana lagu shirbaa waana lagu cibaadaystaa. aadan yabaalna oo ragga magacyada leh aad garanaysan ay ka arrimin jireen ra'iisul wasaaraheena dadka ku soo tujiyay ceelkii xaradheere oo 30 sano aan dawlad aragna dhalinyaro Soomaaliyeed baa calankii buluuga ah ka lalisa. nimanka reer Hiiraan ee calanka dahabka sidana guhaadii lagu hayay ee cilmi waanu kula daaranay dadka iyaga kula daarasho wacanna way ahayd. boqolaal kun oo muwaadiniin Soomaaliyeed baa maanta gobannimo milga iyo sharaf ku nool adduunka. markaan tagana guusha wala noo qira